kulanti wanaagsan dhammaantiin kuna soo dhowaada barnaamijka tubta nabadda waan ku faraxsannahay inaan idiin soo baahinay qaybta 408aad ee tubta nabadda. waa sidaas Faisa, waxaan maanta ka hadli doonaa mowduuc aad muhiim u ah. waxaan toddobaadkan ka hadli doonaa yareynta halista qaraxyada, gaar ahaan sida loo yareyn karo halista la xiriirta qaraxyada iyo miinooyinka iyo hawsha ku saabsan dhismaha Soomaaliya nabad ah. waa sida aad sheegtay Saalax, waa arrin muhiim ah. sanadihii tagay waxaan aragnay in qaraxyada ay noqdeen nooca hubka ee kooxaha hubeysan isticmaalaan si ay u bartilmaameedsadaan ciidanka ammaanka Soomaaliyeed iyo ciidanka howlgalka midowga Afrika ee ADMIS. Faisoy, iyadoo ay jirto in ciidanku ay bartilmaameedka yihiin, haddana waxa ay waxyeelada ugu badan gaartaa dadka rayidka ah. Dhawaanahan waxa ay gaartay khasaaraha dadka rayidka ah ee qaraxyadu sababaan 56% intii u dhaxaysay bilihii March iyo Abriil ee sanadkan 2024. waa tirakoob qalbijab leh Saalaxow. miinooyinka iyo qaraxyada waxay sababeen dhaawacyada iyo waxyeelada dad badan oo aan waxba galabsan, iyadoo tani ay jirto hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan miinooyinka iyo qaraxyada UNMAS ayaa si dhow waxay ugala shaqeysaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa ADMIS in la xaqiijiyo in dadka ay bad qabaan amnina ay haystaan. hay-adda UNMAS ee Soomaaliya waa qayb ka mid ah howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSUM iyo xafiiska qaramada midoobay ee taageerada Soomaaliya UNSUS. UNMAS waxay xoogga saaraysaa in la yareeyo halista ka dhalan karta qaraxyada oo ay ku jiraan qaraxyada macmalka ah. waa sida aad u tilmaamtay Faisa, UNMAS waxa ay door weyn ka ciyaartaa si gaar ah wareejinta mas'uuliyadaha amniga ee ADMIS ay ku wareejinayso ciidanka qaranka Soomaaliyeed. hal arrin oo wanaagsan waa in la abaabulay dhowaan tababar muddo bil ah socday si looga caawiyo ciidanka qaranka dhanka kobaca karaanka ee wax ka qabashada halista waxyaabaha qarxa. waa war aad u wanaagsan si aan u iftiiminno sida loo yareyn karo halista iyo xoojinta awoodda ciidanka qaranka Soomaaliyeed. waxaan ku faraxsanahay inay nala joogaan laba qabiir oo arrimahan ka hadlaya. waxaa istuudiyaha nala jooga gaashaanle dhexe Maxamed Maxamuud Cawaale oo ka tirsan ciidanka qaranka waaxda injineerada iyo waxyaabaha qarxa, iyo Fran O'Grady, madaxa xafiiska hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaraxyada ee UNMAS. waad ku mahadsantiin Cawaale O'Grady. aan bal marka hore maqalna Cawaale, sidee miinooyinka iyo qaraxyadu u saameeyeen bulshada Soomaaliyeed si gaar ah ciidanka qaranka? maxaa isbedela oo muddooyinkan ku yimid miinooyinka iyo qaraxyada? qaraxyadu aad bay saameyn ugu yeesheen geyiga Soomaalida ay degta qaasatan waddanka Soomaaliya ah, caasimadda iyo gobolladaba. dhimasho tiro badan iyo kala go'naansho inuu ruuxba magaalada u dhaway u tilaabsan, tuulada u dhaway u safri karin bay dhacday. gudaha caasimadda baabuur qaraxya iyo gidaarada qaraxyada la dhiga sida miinada soo booda ee loo yaqaan directional mine ama ID ee ku banaa waddanka ka hor intaanan cilmiga iyo takhasusigan aanan helin. isbeddelka yimid waxaa weeyaan hadduu alla idmahayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaasatan qaybta ama ururka engineeringa juhdi dheer kadib waxaan u helnay taageerayaal iyo waxaan u helnay sponsor. taageeraha iyo sponsorkan u helnay waxay kamid ahaayeen hay'adda caalamiga ee UNMAS ama UNMAS loo yaqaana, taasoona tababar aad u sarreeya ciidamada siisay. kadibna ciidankii xirfadii la baray uu ku dabaqay shaqadiisa. taas waxay keentay inay yareyso marka oo aad u yareyso dhibtii jirtay ama dhibkii ugu dhacay mar walba, maadaama xirfadlayaal aad tayadooda ay u sareyso oo soo saartay hay'adda UNMAS ay tababar ka ahayd oo wili saaxiibadanada dhow ah. ciidanka ay soo saartay wuxuu keenay in ciidan tayo leh oo la dagaalami kara aaladda miinada, la dagaalami karo furi kara wadooyinka xaniban, in la iskugu gudbi karo magaalo ka magaalo. in ciidanka xoogga dalka hadduu howlgala aanan laga qabin maanta shaki wadadaasay miina looga leexan ama hakad ba ku imaanaya howlgalka jira. saameyn kuma yeelan karto in la yiraahdo wadadaasay waa xiran miino oo howlgalka ma dhici karo. waan ka gudubnay xaaladaas. meel walba xanib u yeela ciidamada waxaa horkacaya ciidamada ururka 32 sancada ee xirfadlayaasha miinaystayaasha ay tababartay hay'adda UNMAS, kuwaasoo hadda looga maarmayba wax walba oo hori noo hay xanib oo dhan iyo shakigii ama cabsidii looga qabi wadada in la maro. ciidanka xirfadlayaasha ayaa awooday oo Ilaahay awoodda siiyay inay
xanib walba ay ka furaan ciidanka meel walbana howlgal laga samayn karo maanta galmudug iyo muqdisho inta u dhaxayso ama hiiraan iyo muqdisho inta u dhaxaysa loo mari kara bilaa waswaas ama bilaa cabsi baa la mari karaa ma noo sharxi kartaa doorka muhiimka ah ee waaxda miina baarista u leedahay ciidanka qaranka aragtidaada sidee u aragtaa tababarka muddada bisha socday ee ciidanka qaranka ee dhanka ka hortagga halista qaraxyada xirfad noocee ah ayaase loo baahan yahay maanta casharada baxaya ama hadda koorsada socoto waa koorsada heer macallin caalami ah oo loogu talagalay macallimiin ka socota xoogga dalka Soomaaliyeed oo Soomaali u dhalatay kana tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay walaalahood kale baraan ama qaybaha kala duwan waxaan leenahay 5 qayb xoogga dalka Soomaaliyeed sida qaybta 12 Abriil qaybta 21aad Galmudug qaybta 6aad Baydhabo qaybta 4aad Kismaayo iyo qaybta 27aad oo Hirshabeelle ah shantaas qaybood ciidamada jooga inay macallimiin u soo baxaan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed waa arrin aad iyo aad noo farxad gelinayso oo u weyn heerka iyo talaabada hadda aan gaarin waa talaabada aad u muhiimsan ciidan hadda dadka koorsada ku jira waxa loo tababaray macallinimo heer caalami ah inaan annagu aan ka maarano in la tababaro kaliya in annaga wax si tababarno heer aan gaarsiisanahay weeye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadda waa qaybo badan yahay markii la isku soo daro xaqda asa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed way xaqda asa waxa weeyaan ma dhaqaaqi karaan maanta la'aantood ayadoo la soconin qaybta engineering-ka ama ururka engineer-ka ayadoo la soconin marka waxaan dhihi karaa dagaalkan 100% waxa weeyaan cidda lagu xisaabtamayo inay howlgallada fududeyso waxa weeyaan ururka 32aad qaybta engineering-ka ee xoogga dalka Soomaaliyeed mayna suurtageleen howlgalladan ama guulahan lama gaarin haddaysan jiri lahayn ururka 32aad ee engineering-ka ama miina baaris haddaysan jiri lahayn wax guul oo la gaari lahaa ma leh la'aantoodna hadda wax kala dhaqaaqaya ma jiro howlgal walbo la bilaabo ama haddii la tagay hadda hadday noqoto gobollada qaar marka wax walba waxaa furo u ah qaybta engineering-ka ee xoogga dalka Soomaaliyeed ama miina baaris xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa furo u ah taasna waa heer uu ilaahayna gaarsiiyey ma hadda ilaah baa iskale waxaa kaloo u mahad celinaynaa hay'adda waxna bartay ee UNMAS su-aasha ugu dambeysa marka gaashaanla sare waxay noqonee sidee ayay saaxiibada caalamiga ah u taageeraan xoojinta kobaca awoodeed ee ciidanka qaranka kaalin noocee ah ayay hay-adda miina baarista iyo qaramada midoobay UNMAS u leedahay ciidanka qaranka Soomaaliya saaxiibadana garab taagan oon ku xisaabtanaa horta 100% waxaan u mahad celinayaa hay'adda UNMAS saaxiibo badan way jiraan oo na garab taagan sida ciidanka UK-na way jiraan oo ayagana door muhiim ah ka ciyaara tababarada loo qaadayo dhanka Nairobi iyo qaar wadanka gudihiisa ka socdaba qaasatan qaybta 6aad gacan ku haynteeda iyo tababaradeeda ama qaybta engineering-ka markii loo diraya koorsooyinka intermediate-ka iyo advance-ka iyo macallinimadaba waxa door ku leh ayagana UNMAS waxa iska kaashaday UK marka waxaan dhihi karaa saameyn buuxda oo 100% bay nagu leeyihiin mahadnaqna way nagu leeyihiin waana gacanteeda midig hay'adaha la taakule ama saaxiibada la taakule aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa gaashaanla dhexe Maxamed Maxamuud Cawaale oo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliyeed kana hadlayay yaraynta halista miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa haatanna waxaa noo suura gashay in aynu waraysanno madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa ee UNMAS Fran O'Grady oo aan weydiinay in uu noo sharxo doorka hay-adda UNMAS ee Soomaaliya iyo sida ay ula shaqayso dowladda ciidanka qaranka Soomaaliyeed si loola dagaalamo halista miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa As part of UNMAS, we provide service on a number of key areas, and the first of those is capacity building. UNMAS works closely with the Somali government and the Somali National Army. hay-adda UNMAS waxa ay bixisaa taageero badan oo muhiim ah oo ay ku jirto dhisidda karaanka hay-adda UNMAS waxa ay si dhow ula shaqaysaa dowladda federaalka ah iyo ciidanka qaranka ee Soomaaliya si sare loogu qaado awoodooda wax ka qabashada waxyaabaha qarxa oo waxaan bixinaa tababaro gaar ah oo dhanka amniga ah oo aan siino ciidanka amniga khaasatan ka jawaabista qaraxyada macmalka ah oo ah halista ugu weyn ee Soomaaliya sida aad ogtahayba waxaan sidoo kale bixinaa taageero dhanka howlgallada ah annagoo bixina qalab
waayo aragnimada dhanka farsamada ah iyo gacansiinta howlgallada si ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay awood ugu yeeshaan in ay ka jawaabaan halista waxyaabaha qarxa. Arrinka kale ee muhiimka ah oo aan samayno waa la talinta, oo waxaan leenahay door ay UNMAS kala taliso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay ku jirto in aan kala talino dhismaha iyo hirgelinta siyaasadooda iyo qaab dhismeedka si sare loogu qaado qorshaha qaranka ee ka dhanka ah miinooyinka iyo qaraxyada iyo ka hortagga waxyaabaha qarxa. Ugu dambayn, dhanka iskaashiga, dhab ahaantii waan ka taageernaa dowladda in ay qorshaheeda dejiso, taas oo ah dadaallo ay horkacayso dowladda Soomaaliya iyo sida ay dowladda ula falgalayso hay'adaha caalamiga ah ee kale, sida qaabka ay ula shaqaynayso howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS iyo meelmarinta qorshaha qaran ee amniga, waxayna UNMAS xaqiijisaa in taageeradeeda ay muuqato. Engage with the African Union in their mission here, and by aligning with national security priorities, UNMAS assures that its initiatives support broader security and stabilization. Sidee ayay saaxiibada caalamka u taageeraan xoojinta awoodda ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed? Kaalin noocee ah ayay hay'adda miino baarista qaramada midoobay ee UNMAS u leedahay ciidanka qaranka? The first thing I'd say was the recent Train the Trainers course that we had last week was the first one where we had Somali trainers train Somali students. So that's a Waxa ugu horeeya ee aan xusi lahaa waa tababarkii ugu dambeeyey ee toddobaad ka hor oo ahaa kii ugu horeeyey oo ay tababarayaal Soomaaliyeed ay tababaraan arday Soomaaliyeed, taas oo ah guul weyn oo mudan in aan si wada jir ah u xusno. Waxaana arkay sida Soomaalidu ay uga go'an tahay wax qabsashadooda, taas oo horseedi doonta mustaqbal wanaagsan oo ay dadka Soomaaliyeed horkacayaan. Marka ay timaado hadafka, waa in la dhiso karaanka dadka gudaha si waxqabadku u noqdo mid muuqda. Kooraskan tababarka ah waa in ay tababarayaal Soomaaliyeed wadeen iyadoo cid kale aysan isku halaynaynin, taas oo madax bannaani siinaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay si iskood ah u qabsadaan tababarro ku saabsan wax ka qabashada halista qaraxyada iyo miinooyinka. Hadafka kalena waa ka jawaabista waxyaabaha qarxa, iyadoo tababarradu ay bixiyeen tababarayaasha Soomaaliyeed ay tahay in ay si heer sare ah oo khibrad ku dhisan ugu dhowaadaan oo wax uga qabtaan waxyaabaha qarxa si waafaqsan heerarka caalamiga ah ee la macaamilka qaraxyada iyo miinooyinka. Standardized and in line with international best practices, enhancing operational effectiveness. Ugu dambeyn, waa maxay qorshaha muddada fog ee UNMAS ee ku aadan horumarinta amniga Soomaaliya? So UNMAS's long-term vision for improving security in Somalia is really closely aligned to the broader goals of peace building, state building, and a sustainable. Qorshaha mustaqbalka fog ee UNMAS waa mid waafaqsan hanaanka nabad-dhiska, qaran-dhiska iyo horumar la taaban karo oo dalku gaaro. Arrinta aadka ugu muhiimka ahna waa xoojinta hay'adaha qaranka oo waa qayb dhan oo dowladda ah oo ku aadan amniga iyo badqabka iyo fahamka in UNMAS iyo hay'adda kale ee Mine Action ay door muhiim ah ka ciyaarayaan sidii taas loo gaari lahaa. Waxa aan ku aragnay tababarkii dhowaan waa in ay awoodeen in ay shaqada si wanaagsan oo waxtar leh u qaban karaan si iskood ah mustaqbalka. Arrinta kale ee muhiimka ahna waa horumarinta ilaalinta dadka rayidka ah, waana hawsha Mine Action oo ah samata bixinta dadka rayidka ah ee halista ay ku yihiin waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka. Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan ee UNMAS oo kaalin mug leh ka qaatay yareynta halista miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Tubta Nabadda oo aan maanta ku soo qaadanay halista miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Saalax Cismaan Diiriye iyo Faa'iise Cabdi Warsame. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.